Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal. Daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa Soomaaliya Banaadir TV. Qodobada wararka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweyne Trump oo mar kale ku hanjabay inuu si xoog ah shidaalka uga qodan doono Syria. Waxaa kaloo barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan Al-Shabaab oo macallimiin ku laayay gobolka Garissa ee dalka Kenya. Soomaaliya iyo Midowga Yurub oo kala saxiixday heshiis ku saabsan xoojinta amniga badaha Soomaaliya. Iyo madaxweyne Farmaajo oo u dhoofay dalka Cumaan. Qodobadaas ayaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka inta uu socdo. Soo dhawaada isagii oo fidsan. Donald Trump ayaa dib u cusboonaysiinaya hanjabaadiisa ku aadan in uu si qasab ah shidaalka uga xadayo Syria. Waana tallaabo ay khubaradu sheegeen in ay noqon karto dambi dagaal. Madaxweynaha ayaa difaacay go'aankiisii ahaa in ciidamada Mareykanka ee laga saaray Syria bishii Oktoobar ay halkaasi u joogeen oo kaliya sugidda haamaha shidaalka ee Suuriya. Waxa ay dhaheen wuxuu ka tegay ciidamada Syria. Ma ogtahay waxaan sameynay? Waxaan qaatay saliidda, ayuu yidhi Trump xilli uu wareysi siinayay Fox News. Bishii Oktoobar, wax yar uun kadib bixitaankiisii kadiska ahaa ee ciidamada Mareykanka, madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu doonayo shirkad Mareykanka ah oo shidaal uga soo qaada Syria iyada oo wakiil ka ah dowladda. Waxaan damacsanahay inaan heshiis la galno ExxonMobil ama mid ka mid ah shirkadaheena waaweyn si ay halkaas u galaan oo ay si sax ah u fuliyaan go'aankayga, ayuu yidhi Trump. Si kastaba ha noqotee, tallaabada noocan oo kale ah waxa ay u egtahay boob iyo bililiqo, waana ficil ka hor imaanaya sharciga caalamiga ah iyo xeerarka dagaalka. Heshiiska Geneva oo Mareykanku qayb ka yahay saxiixayaashiisa wuxuu si cad u mamnuucayaa boobka hantida inta lagu jiro isku dhacyada, isagoo ku qeexay inuu yahay fal dambiyeed dagaal. Ka hor intuusan soo galin aqalka cad, Mr. Trump wuxuu dhowr jeer yiri Mareykanka waa in ay saliidda ka qaataan wadamada kale ee Bariga Dhexe oo ciidamada Mareykanka joogaan sida Ciraaq iyo Liibiya. Al-Shabaab oo 4 ruux ku toogtay goob fagaaro ah gobolka Shabeellada Hoose. Ururka Al-Shabaab ayaa goob fagaaro ah deegaanka Sablaale ee gobolka Shabeellada Hoose waxa ay ku toogteen 4 ruux oo ay ku eedeeyeen in ay la shaqeynayeen dowladda Soomaaliya. Raggani ay Al-Shabaab toogteen ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Ayuub Xasan Buraale oo ay sheegeen inuu maamul hoosaadka degmada Kuntuwaari ahaa, Xasan Cusmaan Cali Abeyle oo Shabaab sheegeen inuu ka tirsanaa ciidamada dowladda ee degmada Baraawe ka howlgalaan aadna looga yaqaan degmadaasi. Xasan Faarax Maxamed ayay ku sheegeen inuu ka tirsanaa ciidamada dowladda islamarkaana ay qabteen isaga oo kusii socda sida ay hadalka u dhigeen degmada Buulaburte ee gobolka Hiiraan. Qofka afraad oo Xuseen Xasan Geeli ayay ku eedeeyeen inuu ka tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya islamarkaana laga soo qabtay deegaanka Dacaaraha oo u dhow degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose. Ma aha markii ugu horeysay oo Al-Shabaab sidan oo kale goob fagaaro ah ku toogtaan dad ay ku eedeeyeen in ay siyaabo kala duwan ula shaqeynayeen dowladda Soomaaliya iyo quwadaha shisheeye ee gacanta siiya. Dhinaca kale, xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Midowga Yurub ayaa ku kala saxiixday magaalada Muqdisho heshiis ku saabsan heerka howlgalka Midowga Yurub ee awoodaha dhismaha Soomaaliya. Heshiiska waxaa kala saxiixday wasiirka arrimaha dibadda Midowga Yurub iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad iyo danjiraha Midowga Yurub Mudane Nicholas Berlanga Martinez. Qaab dhismeedka heshiiska ayaa qeexaya habka iyo wada shaqeynta u dhexeysa Midowga Yurub iyo Soomaaliya, iyadoo la waafajinayo ahmiyadda amniga iyo qorshayaasha xasilloonida si loo horumariyo awoodda amniga badaha Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda iyo danjiraha EU-da ee ku sugan magaalada Muqdisho waxa ay tilmaameen horumarinta xiriirka iskaashiga ee ka dhexeeya labada dhinac inuu yahay mid wanaagsan oo lagu qanco laguna gaaro himilooyinka la doonayo.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ayaa u ambabaxay dalka Cumaan isagoo halkaa lagu wado in uu uga qayb qaato tacsiga qaran ee saldanadda Cumaan. Madaxweyne Farmaajo waxa uu ka mid noqonayaa madaxda ka socota caalamka oo ku qulqulaya dalka Cumaan si ay uga qayb qaataan tacsida loo sameynayo Suldaan Qaboos bin Said Al Said oo maalmo ka hor geeriyooday. Madaxda ka socota caalamka ayaa kusii qulqulaya dalka Cumaan waxaana ay ka tacsiye gudanayaan suldaanka cusub ee Cumaan Suldaanka cusub Suldaan Ethman bin Tariq Al Said. Suldaan Qaboos oo muddo 50 sano ah maamulayay dalka ayaa dhinaca kale ahaa hogaamiyihii ugu xukunka dheeraa ee Carabta waxaana uu ka talinayay saldanadda Cumaan muddo 50 sano ah. Madaxweyne Farmaajo ayaa inta uu ku sugan yahay dalka Cumaan waxa uu sidoo kale la kulmi doonaa suldaanka cusub ee dalka Cumaan kaas oo bedelay suldaankii geeriyooday ee Suldaan Qamuus ibnu Saciid ibnu Tamuur iyo madaxda kala duwan oo halkaasi u tegaysa tacsida qaran ee u taalla shacabka iyo saldanadda Cumaan. Al-shabaab ayaa dilay 3 macallin dugsi hoose iyo dhaawac 1 arday kadib markii ay weerar ku qaadeen tuulada Kamuthi oo ka tirsan gobolka Garissa abaarihii 2 habeenimo ee xalay. Al-shabaab waxa ay sidoo kale burburiyeen anteenooyin isgaarsiineed oo ay leedahay shirkadda Safaricom intii uu socday weerarka. Sida booliisku sheegay, dableydu waxa ay weerareen xarunta kheyraadka Kamuthi halkaas oo ay ku dileen 3 macallin, macallimiin dhedig ah iyo kalkaaliyayaal caafimaad oo ka tirsan machadka ayaa la sheegay in ay ka badbaadeen toogashada kadib markii ay aqoonsadeen kooxda wax weerartay. Dhanka kale, booliiska ayaa durbadiiba gaaray iyagoo halkaasi ka wada baaritaano kuwa wax weeraray. Horaantii bishan, Al-shabaab waxa ay weerareen xero militari oo ku taalla Lamu halkaas oo lagu dilay 3 qof oo Mareykan u dhashay. Dhinaca kale, madaxweynaha Puntland oo xilkii ka qaaday gudoomiyihii maxkamadda ciidamada qalabka sida Puntland iyo garsoorayaal kale maalinimadii shalayto. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani ayaa gudoomiye ku-meel gaar ah u magacaabay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee Puntland. Sidoo kale, madaxweynuhu wuxuu xilka qaadis ku sameeyay gudoomiyihii maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo garsoorayaal kale oo gaaraya ilaa 5 xubnood. Waxaa gaashaanle sare Axmed Cabdi Bootaan si ku-meel gaar ah loogu magacaabay gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus. Waxaa xilka qaadis lagu sameeyay guddoonka iyo garsoorayaal ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida kuwaasi oo kale ah Saraakiil Guuto Saciid Abyan Cigaal gudoomiye gaashaanle sare Maxamuud Nuur Muuse gudoomiye ku-xigeen gaashaanle sare Aadan Xuseen Maxamed garsoore gaashaanle sare Maxamed Aadan Jaamac garsoore gaashaanle sare Cabdirasaaq Axmed Cali garsoore gaashaanle sare Cabdifataax Xaaji Aadan garsoore. Madaxweyne Dani ayaa magacaabistan ku tilmaamay dib u habeyn lagu sameynayo guddoonka iyo garsoorayaasha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Puntland. 24 saac ee lasoo dhaafay waxaa madaxweyne Dani uu sidoo kale magacaabay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha Banka Dhexe iyo ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyayaal degmo iyo kuwo gobol. Wagaag dhegeystayaal daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamij caynkan oo kale intaynu dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegay